طبعا كدله ugu sareeya dunida waa eegi kartaa hal dalo muslim kuma jiro hal dalo carabeed kuma jiro ya waa dalal yar yar oo maaragtaa waliba cimilada iyo environmentiga iyo juqraafiyada ay ku nool yihiin haddaad aragto waxa weeyaan de noloshu ay aad iyo aad u adag tahay Finland baa ugu horeysa dal cuntadiisa meel saaray Finland ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون نبي يوسف عليه الصلاه والسلام استراتيجيته iyo qorshaha maanta jaamacadaha adduunka ugu waaweyn lagu dhigo ee التخطيط الاستراتيجي نبي يوسف عليه السلام laga qaatay iyo kitaabkeena arsaaqda ilaahay dhulka u dhigay muslimiinta oo kaliya ma laha muslim oo kaliya ma laha قال يا مسلم با way u dhaxaysaa waa ninkii la soo baxay warwarka ugu badan ee adduunka maanta yaala xataa dawladihii waaweynaa alquwa alkubra warwarka ugu badan ee adduunka maanta yaala waxa weeye wax la cunaba in la waayo in biyaha adduunka la kala xidho oo nin waliba intii meeshiisa soo mari jirtay waxa weeye uu xidho warwarkaasaa maanta adduunka yaala رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله ولا ليال sida la socotaan dunida de xaalad baa ka taagan adag oo nolosha bini aadamka saameynaysa qof kasta oo maanta adduunka jooga qaaradu doona ku noolaado dalku doona ha joogo mushkiladda maanta taagan albaabkiisa ayay garaacaysaa waxay taabanaysaa qadadiisa iyo cuntadiisa iyo biyihiisa iyo nolosha ehelkiisa iyo dalkiisa ayay taabanaysaa sax ma aha in sheeko iyo maaragtaa faallo arrimaha maanta soconaya ee nolosheenna si toosa u taabanaya inaynu sheeko iyo faallo ku dhaafno oo warkeennu uu soo dhaafi waayo imise gantaal baa lagu riday Iran imise riday xalay ka warrama sheekadu intaa way ka ballaaran tahay warwarka ugu badan ee adduunka maanta yaala xataa dawladihii waaweynaa alquwa alkubra warwarka ugu badan ee adduunka maanta yaala waxa weeye wax la cunaba in la waayo in biyaha adduunka la kala xidho oo nin waliba intii meeshiisa soo mari jirtay waxa weeye uu xidho warwarkaasaa maanta adduunka yaala adiga maxaa kuu tala ah adiga taladaadu maxay tahay adduunyada tacabka iyo mas'uuliyadda noloshaadu adigay ku saaranta adaa lagaa doonaya ma jirto cid loo ballan qaaday in fadhiga wax lagu siiyo oo fadhiga uu ku dhergo ya cid ballanqaad kaa haysataa ma jirto noloshii fadhiga lagu cunayey ee bilaa gaajada ahayd ee bilaa warwarka ahayd ee bilaa haraadka ahayd nolosha noocaas de jannadu bay taallaa jannadaa lagaga yimi noloshaa fadhiga lagu cunayo ee bilaa warwarka ah ee bilaa gaajada ah ee bilaa haraadka ah jannadu bay taallaa jannadana waa tii aabbaheen aadam markii uu ibliisku afka u soo dhuubay dee waa tii laga soo saaray في سورة طه
إلهي سبحانه وتعالى وحويلي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى نبي الله آدم مركي إلهي أبو ري وحل السي جرانتين بالسي جرانتين وحلو جرانتي جري إن أنو جاتش كورورين هرادنا أنو كورورين إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى بل أنت سالسي جاتش يسألك ميسان بالقوي هرادنا يسألك ميسان هذا عي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بني آدم كمصيبة ديسو يا امتحان كيسو وحوي وحكى له ما هبا وأنك حكمه يا وملكي خلافاتك أدونك وقبضا iyo dagaalada adduunka ugu badan iyo xasaradaha iyo qalalaasaha waa nin doonayo inuu maaragtaa dadka kale isagu ay ku soo daba faylaan ninkaas uma mushkiladda dhigaya fawaswasa ilayhi shaytaan qala ya aadam hal adulluka ala shajarati alkhuld wa mulki la yabla mulki iyo boqortooyo aan dhacayn deedna qisadii dheerayd waatii ay cuneen geedkii waatii qaala habitaa minha jamiican bacdukum libacdin cadow degaa lagu yidhi dega xaggaa taga adduunka israaca laba cadow isu ah ayaa laysku soo daray cuntadii iyo raashinkii iyo nimcadii bilaashka ahayd ee jannada lagu cuni lahaana ilaahay subxaanahu wa tacaala meel dee gaajo ah oo aan waxba aanay ool ilaahay ilmo nebi aadan ma keenine dhulkaa loogu aasay waa laga daba keenay dhulka daahirkiisa iyo baatinkiisa hoose iyo badaha hoostooda ayaa loo geliyey bini aadamku ilaa qiyaami saaca wixii maaragtaa ay cuni lahaayeen ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة دولك هوستي سنة وبحدا وقدي سنة وبحدا بضه واسدو كلا بوره واسدو كلا ميل والبا أرساق بهالكا كتاغن وكبحدا لكن محاميش يالا ما أفكار لقو قلنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا بالي صعوا حركة سماء دقاق سماء بالقلية فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور يا مركا وحل ربا وحلقات دون يا ديقا أرساق دي ويتا الله يوالك أدوك الدوشي سالقو ساري يهوستيسي دين الحركة سماء سالقا ربا إنا دقاق سماء سالقا ربا inaad asbaabtii la timaado ayaa laga doonaya arsaaqda ilaahay dhulka u dhigay muslimiinta oo kaliya ma laha muslim oo kaliya ma laha gaal iyo muslimba way u dhaxaysaa waa ninkii la soo baxa weeyaan qadiyadu kuma xidhna anaa muslim ah iyo kaasi waa gaal kuma xidhna وانك الله صبح تعب لي ما دويا إلهي وحي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لما أرندي يا أيها الناس بالي قال يا مسلم با والله دواقي كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وحي دوك أكلا صبح ذان إذن كاسكالي نولي بينتو الله صبحه أيو لي هاي ولا تتبعوا خطوات الشيطان shaydaankii idin khiyaameeyey ee aabihii ka soo saaray nimcada iyo jannada ka soo saarayna ha raacina marka khudbadan maanta waxa aynu ku soo qaadanaynaa adduunku dee waa iska imtixaankaas iyo mashaakilka iyo azamaadka iyo dagaalada iyo imtixaanadu way iska fara badan yihiin laakiin waxaana la siiyey namaadij
tusaalayaal qiso waliba qisay u eg tahay qiso kasta oo maanta ku soo marta mid u eg ama tawjiih iyo tarshiid la mid ah ayaa qur'aanka kugu jira nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii dhaqaale xumada iyo abaarta iyo imtixaanku masar uu ka dhacay isagoo markaa jooga oo weliba jeelka ku jira suuraddan dhan ee nebi yuusuf loogu magac daray horta bal u fiirso qur'aanka imise suuradoodoo maaragtaa cid gaara loogu magac daray ama qisooyin gaara lagu sheegay ayaad qur'aanka ku aragtay suuratu yuusuf baa jirta suuratu muxamed baa jirta suuratu ibraahim suuratu alambiyaa ya waxaas oo dhan ujeeddada ka dambaysa iyo nuxurka ka dambeeya waxa weeye in adiga wax lagugu tuso suuratu yuusuf markii qisadii nebi yuusuf laga soo hadlay ee la soo dhameeyey azmadii iqtisaadiga ahayd ee dhacday iyo siduu u maamulay iyo siduu u daweeyey markii la sheegay aayadda u dambaysa maxaa la yidhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ma kaana xadiidan yuftaraa ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آيات يقول بيسوي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قصوين كقرآن كي مادة سدح وجيدو أي إلهي سبحانه وتعالى وكاني وجيدة كوبات وللاعتبار إن لقوا عبرقاته oo waxa maalintaa ku soo mara de wax la mid ah kitaabkaaga waad ka helaysaa inaad ku cibro qaadato wadadii qaabkii loo maray aad ka faa'iideysato wali i'tibaar laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab ujeedada labaad ee quraanku u soo arooriyay qisooyinka waxa kamid ah waa at-tafakkur faqsus al-qasasa la'allahum yatafakkarun qisada waxa lagu sheegayaa inaana de muruur al-kiram inaana iska dhaafin ee aad fikirto oo maskaxda maragta aad ka shaqaysiiso ujeedada saddexaad ee qisaska quraanka loo soo arooriyana waxa weeyaan waa tathbiitu fuaad rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wa fuaad almu'minin wadajin iyo tasliya مثلا xaalad adag baa kula soo gudboonaatay marka lagu yiraahdo war waa lagu la qabay sheekadani sheeka adiga kugu gaara ma aha waa lagaaga horeeyay marka lagu yiraahdo dibtii baa ka yara ma garanaysa خفيفيسا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا مركا سدح ذا أجيدو أي قرآنك قصصك وأسو أروري مركا إنو سو أرورينو أينو سو كوبنو وما أنت حالدا أينو وجهينو الدنيا دي ماركتا دقالكو كسعودة وليبا إنغا إنو دوي هاي ودولكي وإنو سو مري تشرين حركتي iyo dhaqdhaqaaqii maaragta tijaarada iyo badaacidu maanta ay wada istaagtay meel ay ku dhamaan doontana aan la garanayn xaaladeena markaynu ku dabaqno qisada ugu dhow ee aan soo qaadan karnaa waxa weeye qisatu nabiyillah yusuf alayhi salaam wa kayfa adara al-azmata allati lahiqat bimisra fi waqtihi azmadii iyo dhibaatadii iyo mushkiladii masar ka dhacday ee dhaqaale xumo ahayd sida uu u maamulay nabi yusuf alayhi salaam taasaynu ma garanaysaa aynu mala ugu dhow aynu kaga faa'iideysan karayna يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان قصة وديرتها قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون نبي يوسف عليه الصلاة والسلام استراتيجية يقرشها ما أنت جامع لها دونك قوة وين لو دغو التخطيط الاستراتيجي نبي يوسف عليه السلام لقى قاطي هي كتاب كينيا marka nuxurkeeduna waxa weeye deynaan la iska socono ma inta waxaad heshay un aanad maaragtaa dig ka siinay in kayd la samaysto wax la kaydsado in la tabcado in dhulka wax laga baaro ya
taas weeyaan ya biyaha hadda abaar baynu ka soo baxnay abaartii markii laga soo baxay roobku inoo da'ayna waatan dagaalkan baa dhacay wax kasta waa istaagay marka da waynaynu caqliga ka shaqaysiinaa waynaynu tacab la nimaadnaa waynaynu wax beerannaa waynaynu kayd samaysannaa waynaynu intii aynu hore u isticmaali jirnay in ka yar israafa iyo tabdiilka waa inaan iska ilaalinaa iyo maaragtaa khayraadka ilaahay uu ku siiyey dee wixii ilaahay uu ku siiyo inaad si xikmadaysan inaad u isticmaasho tafciilu taaqaati albashar bini aadamka hantida ugu ballaadhan ee uu dal leeyahay waa dadkiisa dadka weeye marka in aynu dadka dhaqaajinno oo awoodda dadka laga faa'iidaysto maskaxdooda laga faa'iidaysto muruqooda laga faa'iidaysto marka hadalka anigoo aan ku dheeraan oo soo koobaya waxaan u baahannahay reer somalilandow maanta markii aan khudbadda diyaarinayay ayaan waxaan yaro eegay maaragta internetka world food security indexkan eegay dalalka maaragta iktifaa daati raashinkooda waxay cuni lahaayeen meel dhigay ama maaragtaa dee isku filaaday 10 dale ugu sareeya dunida waa eegi kartaa hal dalo muslimna kuma jiro hal dalo carabeedna kuma jiro ya waa dalal yar yar oo maaragtaa weliba cimilada iyo environmentiga iyo juquraafiyadda ay ku nool yihiin haddaad aragto waxa weeyaan dee noloshu ay aad iyo aad u adag tahay Finland baa ugu horeysa dal cuntadiisa meel saaray Finland Ireland Norway waa dalal yar yar oo maaragtaa xataa cimiladoodu sida loogu noolaadaa ay adkaanayso wax kale kuma iman dee tacab bay ku timi tacab bini aadam bay ku timi war markaa bal arrin weyn baa taagani hal la fikiro oo yaan la odhanin un maaragtaa dowladdu sidaa ha samayso kayd waa inay shidaal keentaa waa inay raashin keentaa waa nebi yuusuf calayhi salaam dee isagoo dowladda ka tirsan oo wasiirul khasaana ah haddana bal tawjiihiisa u fiirso qaala tazracuuna 7 siniina da'aban famaa khassa bitawjiihi naasan duuna annaas walaa qabiilatan duuna qabiila walaa mantiqatan duuna mantiqa توجيه عام أو أمضى أو نلقو دقاتشناي أيو نبي الله يوسف عليه السلام وسوى شيدي نقول ما برتي ساكت دقاقه يا نلقى هو سوق في ورصة بيقول وحبرتها وحلص وبحة يا سيدا صحيح مركها إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرين وحا خيرات كأهي فرها بدنا إلهي وإنسيي يفتح يعيد للسيي horta de ilaahay inuu ina tuso ina garansiyo waa ina siiyo waa aragnaa waa haysanaa laakiin sidaynu uga faa'iideysan rabbi subhanahu wa ta'ala haynugu ilhaamiyo adduunka wixii shar soo socdana allah inaga xijaabo wixii khayrana allah subhanahu wa ta'ala allah ina siiyo roobka iyo khayrka inoo daayna ilaahay barakadiis allah ina siiyo mid barakaysan allah inooga dhigo mid caama allah inooga dhigo mid lagu dago oo dadku ku kala nasto allah inooga dhigo ضدك إلهي سبحانه وتعالى قلوبته ذا الله السوجيديو ألا صلوا وسلموا على نبيكم الأمين الذي أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة